ilaa 100 xildhibaan ayaa loogu talagalay foodada maanta golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka dhacday inay ka qayb galaan halka lagu fashiliyo codkii kalsoonida ee la siinayay golaha wasiirada cusub waxa ka qayb galaya siyaasiyiin Soomaaliyeed iyo dalal shisheeye hal ujeedo ayaa laga lahaa laakiin ma suurtagelin tiradii foodada ka qayb gashay waxay ku noqotay dadkii gadaal ka riixayay kaaf iyo kala dheeri shock madaxay wada qabsadeen fadeexada halkaasi ka raacday ceebtii ku dhacday iyo qaabka ay u kashifmeen ayaan doonayaa inaan barnaamijka ku soo bandhigo waqti badan geli maayo muuqaalada waa daawateen waqti badan geli maayo feerkii iyo sijiidkii waa aragteen nuxurka dambe oo kaliya ayaan tooshka ku iftiimi doonaa ilaa 100 xildhibaan ayaa la diyaariyay waxaa la doonayay in ay kashifaan oo ay kiciyaan fawdo oo kalfadhigii codka kalsoonida golaha wasiirada la siinayay halkaa lagu kala tago ra'iisul wasaarihii uu dib u celiyo golihiisa wasiirada kadibna ra'iisul wasaaruhu uu magacaabo wasiirada kale qorshaha qaabka loo diyaariyo waa sida waxaa la yiri 100 xildhibaan mar qura fartaha taagaano oo hay yiraahdaan mooshinaan wadnaa gudoomiye ra'iisul wasaarihii fadhiya inta uuna ra'iisul wasaaruhu qodbayn mar alla iyo markii mooshinka 100 qofood ay la istaagtaan waxaa la doonayay inuu gudoomiyaha golaha shacabka uu aqbalo oo yiraahdo alla ilaahay waa 100 xildhibaan 100 xildhibaanna ciyaar ma aha waa in la dhageystaa mooshinkaasna lagu yiraahdo qaabka golaha wasiirada loo magacaabay waa qof jeclaysi حمزة يا حسن الشيخ محمود وزير كلام حرانين صاحب بدوت أي وزير كأكتر هكذا صار الربي الرئيس الوزراء يوزير ذي وفرية وهو أبيه حلبانا ده بقول حلبانا دوان قشنيت سياسيين تيكدم بيو ونفتي بدوها إيو ولي بدل كيش شيء حسي الشيء مركي كالفرق البرلمان كلا جاري وقت جيسي لو وضع فريستين الرئيس الوزراء ويمد قدوميها قالها شعب كوير بالرئيس الوزراء هناقض بيو أجندها أنت أن لجارين إن كاستمر كده قدوميها قراء الشعب كله يري أجندها هرمرين كده رئيس وزراء وهاخد بيو أجندي بهرمرية ويري أجنده إنه وعنصحين تقولها وزيرها كده بناخد بدل رئيس وزراء أو واحد يطلع هل كامر كي أهرنتو مرة يسوع أيام مرة قرى واحد باللوضي صوحا تردي أي سوريين سياسيين تي كلا سعودي ميديا oo ay doorayeen ba in ay indhahooda ku arkaan sida uu ceeboobayo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre loo foodaynayo golaha shacabka baarlamaanka meeshii 100 xildhibaan laga sugayay 93 xildhibaan ka aamusta oo arrintiiba haba yaraatee gacan u taagay waxa soo haray 7 xildhibaan oo kaliya 7 xildhibaan istaagtay markaas ay yiraahdeen mooshinaa wadnaa firimbi qofkii firimbiga laga soo gaarana waa gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka Saacadiya markay Saacadiya aragtay tirada yar firimbigana ay aragtay gudoomiyihii dhigto waxay ku tiri oo dhigto ugu sheegtay gudoomiye sheekada waan aqaanay hore u soo arkay kasoo markaasuu gudoomiyihii golaha shacabka wuxuu yiri in ka yar 10 xildhibaan fawdo wada loo joojin maayo laamaha amnigu waa inay banaanka u saaraan annaguna waxaan sii gudagalaynaa buu yiri ansixinta golaha wasiirada xukuumadda cusub hadalku markuu halkaa marayo fawdadiina ay 7 xildhibaan kaliya ay noqdeen waxay isku dayeen inay aadaan dhinaca gudoomiyaha golaha shacabka iyagoo gudanaya ballanqaadkii lacagihii loo ballanqaaday hadday fawdadaasi ay dhameeyaan la siiyo ayay xaggii gudoomiyaha aadeen tiradiyo 7 ah bishiyo 7 ah 7 minute gudahood oo la doonayay in lagu ansixiyo golaha wasiirada waxay ku noqotay dhaka faaclaad gudoomiye aadan madoobe uma joojin 7 xildhibaan wuxuu yiri banaanka loo saaro mar alle markii banaanka loo saarana golihii wasiirada loo codeeyay 229 xildhibaan ayaa cod ka siiyay golaha wasiirada cusub 7 xildhibaan oo hadda ka sheekeynaya fawdada wadaan waa diideen hal xildhibaanna waa ka aamusay sida darteed waxay noqotay xukuumadii ugu cod ka badnayd golihii waa xukuumadihii soo maray dalkeena 10 sano ugu dambeeyay lama arag cod ah 229 xukuumadii ku xigtana waxay noqonaysaa tire inta la eg oo cod ka hesha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya xukuumadii Xasan Cali Khayre 224
حكومة حمزة وحي شباب بقول الله بعتني السجال حكومة رئيس الوزراء محمد حسين روبلان وحي شد بقول سديت سديت فوضى دي مركع سجاشر يسد حلبان أي جلاب الدرقي ولما حلبان هذا جلاب الدرقي الدياري وحكم ده حلبان ياسين فري أو قرضاً أباب الكودي أو فوضى كده بيسي أي كرسوني كوكبين وكشكل دور ولا شيء دور مقعيده ده كدياري أوردن ياسين فري ما توا إسحوريين وحقو كم من نقطة حلبان الذي وجوه صفقة هوري استاجا عدك كرسوني ده جراح الشعب كسوة كاملة يرى هذا أنا جو ياسين فري أحد كي جو حسين حكومة ده السوق الرئيس الوزراء حمزة عبد البرهي نحن إياه أن فريد بيكون نقطة الشعب كالصومالية لكن نين كاملة حلبان ده برلمان كفدرال كالصومالية أو لو ملايين إن كستوغلال ده بدبع الشيء وربحين تقول الله هذا يوسك إجنين هرتاسي عن شقة كل عين ومن هالجماعة رأها ما أكان صوبت وتيم كانوا من نقضي وحن أكيد حلبان كاسي ومركي كلها وزيرنا لأسحري محدين درت المرح قصري ما تغنى نكاس ونكي حسن فريم بأها ونكي هذا كهر فرماجة فريم بكويري أو لو بحي حسن فريم وأنا إذا تصيا بالدجنينا إنديه نقارك قف كان كهلا يو إنديه نقارك أنا جبني يقول ما يمارس ninka madaxa haysta waay isagoo fadhiya golihii shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waliba ku dhex jira xildhibaanadii taabacsanaa xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayuu naxdin awgeed madaxa qabsaday ka been abuuri maayo wadu jiddan waliba sawirkan marka laga qaadayay uu sida u naxsan yahay waa waqtigii uu gudoomiyaha yiriyaa taageersan oo codka siinaya حكومة عصب ضد كيودان أما حلبان كيودان قاعدين تاني حتى ياسين فريد جدا ما حقول على حسن فريد هو حكم لها وقول كحلبان فوضى اللوتياي وأنه المجال اسكت يدي إنه استقريو واستدمعي إنه جلو أو بيره هذا أنا واحد تابع سنة حكومة لكن أنا جوحنا هاي ميديا وحنا ما قرينه ومدة الصومالية نرتها تصنع حسن فريد بقول كحلبان وكمتها بقول كاس حلبان حتى ياسين فريد وكشي لكن ياسين واقع السحوريين نكان لكن مضحوا قصر ماشي أنك سوغي إنه حسن فريد بالنقطة قفك كوالي كأنت وليه ما هين يعني حسن فريد بالساكة بسوغي حتى وحنك سوغي إنه سايره لكن حسن فريد بيوم تحيات كتكون رسول الله صعبة بكون ملايين هذا بقول شحا فوضى وحا كدبيين madaxda maamul goboleedyada koonfur galbeed galmudug qoorqoor iyo cabdicasiis lafta gareen maxamed farmaajo iyo fahad yaasiin dowladaha qatar iyo waliba Etoobiyana damacooda wuxuu ahaa in dib golaha wasiirada loo celiyo maxay leeyahay Etoobiya ninka ay sida gaarka ula dagaashantahay waa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre xukuumaddiisana raalli kama ahaynba maadaama asaga codka kalsoonida helay uu noqday ra'iisul wasaare sharci ah إثيوبيا وحكى قرنين إن يكون دكتور وزيرها هذا ما دولة شيء سياسيين تي سوجر مع الجمهورية ده هي حكومة دي فشلتين محمد عبد الله فرماجة هي رك كلام أو أندوري إن الباريس يركو سمايو أو سياسيين أو رئيس مقدشة أو هوية أو يوم جدال كريحي موشي كيلو عبوبي يفوض دي لجوك هي حكومة ده وكسر شكين دونا أنا بقول جعلنا نخذ قفك كوالي بين شجع وحنجعل له قفك لبعض يهون تشجعين نخذ قفك أنا وربحين تيجوا أي حقيقة نقطنا الصور عبدينا سيد الحسن فريم بإيدين تصي يعني دي تصي دونا أنت كردم بيسافوض ده نما مها مساعدة صوص ده أي برنامج ده صوص ده كو افتمي دونا حتى عليه مو هذا بقول جديد رجل لها أو أي سياسيين تقارن حتى باريس كوضو هي أنت عن مقعيد الشيء ujeeddo kale ma aha oo shisheeye iyo Soomaaliba waxay lahaayeen ujeedadu in golaha wasiirada dib loo celiyo oo ay yimaadaan golaha wasiiro oo iyaga taabacsan inta la raadinayay intaasay ahayd laakiin xukuumaddu waxay heshay 229 cod 7 cod oo kaliya ayay heleen marka meesha nuxur labaad ku jira wixii awooda oo muddadan lagu faanayay oo lagu qayla dhaaminayay maanta marxaati waxaad ka tihiin CBB du inay 7 qof kaliya ka soo hartay 7 CBB ah oo waliba qaarkood dambiyo ku jira hadda xildhibaanada qaar meediyaha la hadlay waliba mid kamid ah xildhibaanada oo muuqaalkiisu wareegayo baraha bulshada waxa jira si cad u sheegayo oo leh aagan ku dhufan rabay gudoomiyaha golaha shacabka
oo waliba isagoo caagii ku dhufan raba kaamiradu ay qabanayso laga qabanayo isagoo gudoomiyaha weeraraya kulli sharciga qaban doona xildhibaanadaasi intii fowdada geysatana waa la dabageli doonaa xukuumadda cusubna maanta way saldhigatay ra-iisul wasaaruhu ilaa iyo 10 qodob ayuu miiska soo saaray uu yiri dowladeedu way qaban doontaa 10kaasi qodob waa 10 qodob oo muhiim u ah qarankeena iyo waliba dowladnimadeennaba haddii uu ra-iisul wasaaruhu 10kaasi qodob si dhab ah u qabtana dalkaygu wuxuu ka gudbi doonaa nidaamka 4.5 wuxuu u gudbi doonaa nidaam qof iyo coda ra-iisul wasaaruhu arrimaha uu soo hadal qaaday amniga ayaa ka mid ah oo culayskeeda leh iyo waliba dib u heshiisiin dhamaystirka dastuurka taasoo ka dhigan in xukuumadda hadda codka kalsoonida golaha shacabka heshay ilaa iyo weli madaxweyne maamul goboleed oo soo dhaweeyey ma jiro taasoo dadka Soomaaliyeed ay ka arki karaan in Xamza iyo maamul goboleedyadu aysan isku wanaagsanayn haddii marka Xamza iyo maamul goboleedyadu aysan isku wanaagsanayn oo maamul goboleed maanta si cad u sheegay oo inuu garab taagan yahay golaha wasiirada oran jiray oo nin walbaba uu ka aamusay ma sahlana culayska u yaala ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu laakiin shacabka Soomaaliyeed waxay maanta arki karaan in ummadii dadkii fowdada ku waday 7 kaliya ay ka soo hartay marka iyadoo bishu ay 7 tahay ayaa 7 CBB ah lagu gowracay xaruntii golaha shacabka ceeb iyo lama aragna way ku dhacday wixii ku soo kordhay arrimahaasna insha Allah barnaamijyada soo socda ayaad ku daawan doontaan mar walba waxaad igu imaanaysaa xogta daboolan ee qarsoon ummadda Soomaaliyeedna waa la wadaagaa waxyaabaha aan isleeyahay alla ilaahib waa muhiim shacabka Soomaaliyeedna wax badan bay halka ka dheehan karaan wixii ku soo kordhay isha ku hay Facebook page Cabdullaahi Balwan hadduu alla ibo nabadgelyo